الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa maalintii shalay ahayd soo baxay warbaahinta in booliiska Somaliland ay la wareegeen oo buufiyeen gawaari ama gaadiid kala duwan oo hore maxkamadaha hoose darajada koowaad ay muwaadiniin ugu xukumeen inay qaad sifa sharci darro ku soo geliyeen. runtii talaabadaas aan hadaan nahay ururka qaranada Somaliland oo dhan waa aragnay inay tahay talaabo sharci darro halisna ku ah nidaamka geedi socodka dacwad qaadista iyo xuquuqaadka asaasiga ee dadku leeyihiin. sababtan waxay tahay sida dalka sharcigeenu qoran yahay marka qof la xukumo wuxuu xaq u leeyahay rafcaan ka qaadan karo ilaa laba darajo kale ayaa u furan oo saddex jeer dacwadaha dhageysan kara. marka dacwaddu waxay noqonaysaa kama dambaysa xukunku noqonaya kama dambaysa la fulin karo marka maxkamadda u sareysa dalku ay soo saarto go'aan ama xukun kama dambaysa. wixii inta ka horeeya waa xukun aan bislayn oo afka sharciga loo yaqaan waa xukun aan u bislaanin fulin ama aan ahayn final judgment. kolka in booliisku la wareego gaadiid leeyahay iyadoo aan xukun kama dambaysa soo bixin oo aragnaa ayna tahay marka dastuurka Somaliland xeerka afka ciqaabta xeerka nidaamka garsoorka la eegaba mid ka soo horjeeda xuquuqda aasaaska ah inay rafcaan qaataan oo doodahooda ay soo gudbistaan waxayna waxyeello ku noqonaysaa habsamaadka garsoorka. marka waxaan u soo jeedinaynaa laanta fulinta booliisku ka mid yahay iyo guud ahaan fulinta oo dhan inay ixtiraamaan nidaamka garsoorka u shaqeeyo kala sareynta garsoorka iyo dacwad qaadista garsoorka hantida dadku leeyahay inay u daayaan inta go'aan kama dambaysa maxkamadeed ka soo baxayo. waxaan halka ku haynaa dadka gawaarida loo wareegay qaadkood rafcaan bay qaateen maxkamadda rafcaanka dacwaddu dhageysanaysa kuwa kalena muddada rafcaanku kama dhicin. marka sharcigu ma ogola qof rafcaan u yaalo ama fursadii rafcaanka haysta in lagu fuliyo xukun aan kolkaa kama dambaysahayn nidaam hore dalka uga dhici jirayna maaha. kolkaa taa waa in laga waaqsada. qodobka labaad aan jecelahay inaan ku daro waxa weeye dadaalada waxtarka loogu jiro sida cudurkan loo qaban lahaa ama wax looga qaban lahaa markay guddiyadu awaamiir ka soo saarayso runtii inay la tashadaan qaanuunyahankooda ama dadka xeer yaqaanka ah ee dawladda u shaqeeya si go'aanadoodu ay noqdaan kuwa ku salaysan qaanuunka. xilliyada xiisaduhu jiraan wadamada ama masiibooyinka ama dagaaladu waa tijaabo waxay u yihiin nidaamka sharci dalku sidoo adeegay. kolka haddii dalkaas sharciga raaco adkeeyana waxa la fahmaa in nidaamkiisa isku xukunka sharcigu si fiican u shaqeynayo. haddii xaaladaha xiisadi jiraan laga talaabsadana waxa la garwaaqsadaa in nidaamkan caga badan ku taagnayn. marka runtii taasna waa talaabada aan soo jeedinayno ah in qaanuunka mar walba loo raaco wax walba talaabo kasta la qaadayo maxaa dalka xeer u yaala u yahay. anagu kama hadlayno qaadka iyo xalaashiisa iyo xaaraantiisa iyo wixii la mid ah. waxaan ka hadlaynaa hanti dad leeyahay oo xukun maxkamadda ku soo baxay oo rafcaan laga qaatay oo haddana hantidii la qaatay. marka maxkamadda rafcaanku maxay ka garanaysaa hantidii booliiskiiba qaatay oo ku shaqaysanayo waa la dharan rogomida booliis buliyo gawaadii lagama garanayo. haddii kolka maxkamadda rafcaanku u garwaaqsato in qofka khalad ba laga qaaday cadaalad darro ahayd qofku sidee u hantidiisa ku heliyay waxaa dhici karta oo dadka qaar ku doodayaan inaanay hantidan iyagu qaadba u diranin ee dadka kale ku galeen oo qofka hantida la iyo qofka lagu xukumay kala jaadi dad qaar waxay ku doodi karaan inaan waxba lagu qaban. marka maxkamadda xukunay ka soo saari kara ka duwan. marka booliisku waa inuu dib uga noqdo arrimahaas hantida dadkooda u daayo aanu dhalo rogin. muhiimaduna waxay soo imanaysaa in la ixtiraamo garsoorka iyo sida garsoorka Somaliland u shaqeeyo. bismillaahir rahmaanir rahiim. nagoo ururka qaranada Somaliland ee Soola waxaan saaka halka ka cabaaraynaynaa falkii shalay tolo booliisku ku kacay kaasoo ah dacwada maxkamadaha ku jira oo ilaa hadda jidkii karnaqa ku jira inay shalay tolo warbaahinta ku baahiyeen in ay la wareegeen isla markaana ay buufiyeen. taas waxay si cad uga hor imanaysaa nidaamka cadaaladeed ama nidaamka garsoorka Jamhuuriyadda Somaliland. qofka hantidiisa waxa la wareegi karaa marka uu xukun kama dambays ah ku dhaco. dhammaan baabuurtaasi shalay la wareegay dadkay muwaadiniinta ee lahaa waxa u furan jidka rafcaanka qaarkoodna waa bay qaateen. halkan waxaan ku haynaa kowdii bisha shanaad 2020 lix muwaadin oo rafcaankooda ay booliiska laftirkooda soo gudbiyeen oo kuna cadeynayaan inay dadkaasi ka qaateen xukunadaasi ku dhacay rafcaan. waayaan darro wana cadaalad darro weyn qofkii muwaadinka oo wili jaranjaradii karnaqistu u banaan tahay saddexda maxkamadood ba wuxuu leeyahay qofku markii takuwaad xukunto wuxuu xaq u leeyahay maxkamadda rafcaanka u qaato in rafcaan. waxa uu leeyahay maxkamaddaasi rafcaanku markay ay dhamaato inuu tasara u qaato. tasara markay dhamaato wuxuu xaq u leeyahay inuu jidka la yiraahdo dib u eegista inuu qaato. dhammaan inta aan xukunku jarajooyinka gaadhin amba aan muddada rafcaanka oo 30 cisho dhicin qofka muwaadinka xaq waxa uu leeyahay inuu rafcaankaasi ka rafcaan qaato. sidoo kale dhammaan hantidii xukunadaas ku soo baxayna lama fulin karo waayo afka sharciga marka lagu wadayo waxay tahay xukunadaasi uma bislaanin in la fuliyo. haddaba anagoo laftirkeeda cadaalad darro u aragna xukunadaas ay u dhaceen laakiin taas ay tahay jidka garsoorka inaanu dadkaasi ku difaacno waxaanu booliiska uga digaynaa
maanta khalkhal weyn ayuu geliyay nidaamka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan markaas uga digaynaa inuu baabuurtaasi isticmaalo sidoo kale xukuumadu way dhici karaan kuwan iyo qaar ka dambeeyaba inay dhacaan waxaan ayna ku baaqaynaa in nidaamka cadaaladeed la ilaaliyo oo dadkaasi hantidooda iyagoo wali rafcaanku furan yahay aan booliisku ku tagrafilin oo awoodiisa isticmaalin waxay su'aashu tahay biritoole marka rafcaankaasi maxkamadda rafcaanku ka garnaqaan haddii ay soo saaraan xukuumada hore inay baadil haayeen booliisku muxuu soo celinaya soo kuwan ku tagrifalay ee baabuurtii rijigii ka bedelay waxaan leenahay maanta taasi way dhacday laakiin waxaan taliska booliska oo ugu sareeyo taliyaha booliska ugu baaqaynaa baabuurtaasi inaan la isticmaalin sidoo kalena aan la qaybinin halka ay falka ay maanta sameeyeen ay ku joojiyaan baabuurta dambe ee ay tan oo kale ku dhacdana aan sidan oo kale u dhalan rogin aad iyo aad baa u mahadsantiin laakiin dadka aragtidina ka soo horjeeda waxay ku doodayaan in xaaladani ay tahay xaalad degdeg ah oo dalka la geliyay maadaama cudurkan faafitaankiisa laga hortagayo maadaama xaaladaasi ay tahay xaalad degdeg ah oo ay tahay xaalad degdeg ah sidaa daraaddeed in loola wareegay hantidan aad iyo aad baa mahadsantu waa su'aal muhiim ah xaaladaha degdega ah dalka marka la gelinayo jid gooniya loo raacaa tusaale ahaantii bandooda ay dadkeenoo dhan ka wada dhareegsanaayeen maaha intuu madaxweynuhu go'aan iska soo saaray in hore xaalad degdeg ah dalka geliyay maaha guddi meel fadhiisatay inta iska soo saartay in hore xaalad degdeg ah la geliyo deetana xaaladda degdegiisa ku fulayso waa qawaaniin iyo waxa loo raacaa dariiqo sharci waxay tahay labada gol qaran in la isku yeero sharciga nidaamka sharci la mariyo marka haddii xaaladaha degdeg ah la soo rogo baarlamaanka iyo hay'adda sharci dejintu marka ku waafaqdo sharciga la curiyay la raaco ay xaaladda degdeg hirgasha laakiin amarada fulintu intooda kale waxay tahay in nidaamka qawaaniinta sharciga yaala loo raaco qodobadii ay soo saareen guddidu waxa ku jirtay in digniin la siiyay dadka inaanay qaadka soo gelin haddii ay soo geliyaan ciqaabta ay mudan doonaan ka mid noqonayso in hantidooda lala wareegiyo gaadiidka go'aanadaasi waa go'aano fulineed maaha go'aano garsoor manaha xeerar baarlamaanku jideeyay sidaas darteed markooda horeba haddii aanay shuruucda dalka waafaqsanayn ayaga laftirkoodu waa wax kama jiraan inta guddi fadhiisato sababtee uu baarlamaanku inoogu jira sababaha hay'adaha garsoorka inoogu jiraan haddii guddiinta meel ay fadhiisato awaamirteeda lagu shaqaynayo waxay tahay mar walba shuruucda baarlamaanka ka soo baxda ee madaxweynuhu saxeexay in lagu shaqeeyo haddii xaalad degdeg timaadana in loo maro nidaamka xaaladaha degdega ah loo maro oo ay tahay in madaxweynaha xeer degdeg la curiyo imaka dalalkeena la mid ah qaarkood xeer bay markiiba curiyeen baarlamaanada la mariyay haddii si ka duwan xaalad degdeg emergency loo waxa la yiraahdo ay noqotona iyana waxa hay'adaha sharciga loo gudbiyo maaha wax madaxweynaha iyo guddi toonna ku go'da